daawadayaal soo dhawaada meel kastoo ay joogtaan caawa haddii dagaal uusan dhicin berri ayuu dib u qarxi doonaa dagaalka Mareykanka iyo Iiraan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo mar kale waqti qabsaday xayiraadna saaray wadanka Iiraan dekedaha ku yaala. Iiraan waxa ay si degdeg uga hadashay xayiraadda dekedaheeda, jawaab ayayna bixisay, falanqeyn ayaana ku sameyn doonaa. Iiraan hubkeeda weli banaanka ayuu yaalaa, lama xareynin, mar walba ayuuna dagaalkan qarxi karaa sida ay sheegayaan madaxda ciidanka dalkaasi Iiraan. sidoo kale waxaanu eegi doonaa kooxda Xisbullah ee reer Lubnaan ayaa weli waxa ay dabcan ay garaacaysaa Israa'iil gudaheeda. xarumo muhiim ah oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin ayaa ay dabcan khasaare kala duwan ay gaarsiisay. qodobkaasina si gaar ah ayaan uga hadli doonaa. haddii aad saaxiibayaal nagu cusubtihiin nagu soo biira, waa 13 bisha Abriil sanadka 2026. saaxiibayaal marka hore barnaamijkeena waxa aynu ku bilaabaynaa cabsi weyn ayaa soo kordhay oo ku saabsan xaaladda bariga dhexe, oo waxaa la leeyahay haddii caawa uusan dagaalka Iiraan iyo Mareykanka uusan dib u qarxin, berri subaxii ayaa ay suuragal tahay in uu dib u qarxo, maadaama wadahadaladii wadanka Pakistan gaar ahaan Islamabad uga socday Iiraan iyo Mareykanka uu fashil uu kusoo dhammaaday. lagu kala kacay odaygii Donald Trump ahaana uu waqti kama dambays ah uu qabsaday oo uu leeyahay Iiraan dekedaheedii ayaanu xayiraad saaraynaa, xoog ayaanu ku furaynaa marinka Hormuz. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu bilaabi doono xayiraadaha maraakiibta soo galaya iyo kuwa ka baxaya dekedaha wadanka Iiraan wixii ka bilowda gelinka dambe ee maanta. waa waqti kale oo Trump uu qabsaday. maanta oo Isniina wuxuu leeyahay gelinka dambe maraakiibta gelaya kuwa ka baxaya wadanka Iiraan oo idil waanu dabcan saaraynaa xayiraad oo wax halkaa ka baxaya soo galaya ma jirto. Mareykanka ciidankiisa badda oo maraakiib xooggan wata ayaa soo fariistay meel dabcan u dhow xeebaha wadanka Iiraan ama biyaha wadanka Iiraan. waxay leeyihiin markab halkan ka baxaya ma jiro, mid sii galayana ma jiro. Iiraanna dabcan waxa ay weli miinooyin ay ku aasaysaa isgoyska Hormuz la yiraahdo, halkaasoo Iiraan ay ku gacan sareyso. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa isaguna sheegay in xayiraadan aan si kala sooc lahayn loogu fulin doono maraakiibta ka kala socda dhammaan wadamada caalamka. si kastaba noqotee waxay sheegeen in ciidamadoodu aysan hor istaagi doonin xayiraada marinka Hormuz. maraakiibta ka gudbaya dhammaan waa la istaajin doonaa, looma fiirin doono wadanka saaxiibka la ah Mareykanka iyo kan cadowga ku ah. ilaalada kacaanka wadanka Iiraan iyaguna waxay sheegeen in maraakiibta militariga ee ku soo dhawaada marinbiyoodkaasi loo arki doono inay jabiyeen xabajoojinta hadda jirta, islamarkaana si xun loola macaamili doono, loona duqeyn doono. ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iiraan waxay yiraahdeen annaga hubkeenna weli gacantaanu ku haysanaa, banaanka ayuu yaalaa. haddii meel u dhow marinka Hormuz loo soo dhawaado, dabcan dagaalkii ayaa dib u qarxaya. warbixin uu soo saaray wargeyska Wall Street Journal yiraahdo ee ka soo baxa wadanka Mareykankana waxaa lagu sheegay in Trump uu ka fiirsanayo in uu dib u bilaabo weeraro cirka ah oo Iiraan lagu qaado. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta in dhammaan xulashooyinka ay miiska saaran yihiin, kaasoo la xiriira in Trump uu dib u bilaabi karo weerarada cirka ah ee ka dhanka ah gudaha wadanka Iiraan iyo in la iska dhaafi karo intaba. Trump wuxuu sheegay in Iiraan ay weli rabto inay sii wado hamigeeda nuclearka, isagoo sheegay in dabcan arrintaasi Mareykanka iyo Israa'iil aysan aqbali doonin. burburka wadahadaladii nabadda iyo kororka qiimaha saliidda ayaa saameyn dhaqaale adduunka oo dhan ku yeeshay. qiimaha saliidda ayaa hadda waxa uu gaaray $103 halkii barmiil, taasoo dabcan ka dhigan in meeshiisa shidaalka uu dib ugu noqonayo. haddaba saaxiibayaal aynu eegno, Iiraan si adag ayay uga hadashay, wayna u jawaabtay Trump markii dekedaheedii xayiraada la saaray, maantana ay bilaabanayso. militariga wadanka Mareykanka ayaa sheegay in dabcan dekedaha wadanka Iiraan maraakiibta gelaya kuwa ka baxaya xayiraad la saaray. haddaba Iiraan arrintaa way ka jawaabtay oo waxay tiri maraakiibta militariga ee marinka Hormuz ku soo dhawaada, dabcan qiyaamahooda ayaa yeeraya. afhayeenka baarlamaanka wadankaasi ayaa Telegramka qoraal uu soo dhigay uu ku sheegay, wuxuu yiri qiimaha saliidda barmiilkiiba hadda $103 buu gaaray, laakiin qiimahaasi ayaa loo xiisi doonaa oo waxaa la dhihi doonaa qiimo wanaagsan buu ahaa $103 halkii barmiil,
oo ka dhigan in Iran ay doonayso in halkii barmiil ay gaarsiiso 150 ilaa 200 oo dollar, taasoo macnaheedu uu yahay caalamka oo idil ayaa cunaqabateynta aanu dabcan ku dhawaaqi doono ay saameyn doontaa. Marka cabsi weyn ayaa saaxiibayaal jirta. odaygii Donald Trump ahaa wax walba oo horey loogu sheegay waa uu ka biidiysan yahay, xaaladiisu meel adag bay maraysaa, waa la ishayaa. dadka oo dhan waxay leeyihiin haddiiba 10kii qodob ee Iran miiskay soo saartay Mareykanka uu aqbalay kadib wadahadalo la aaday Islamabad, Pakistan, maxaa waaye waxa hadda keenay in haddana la kala boodo. saaxiibayaal, telefishinka Focus News liiraahdo ayaa dabcan ka hadlay dalabkii Mareykanka uu miiska soo saaray markii Islamabad la sugu tagay oo laga hadlay wadahadalada iyo waxa keenay burburka wadahadaladaasi. telefishinkan Focus News liiraahdo oo Trump iyo maamulkiisa ku dhow wuxuu leeyahay shuruudihii Mareykanka miiska ay soo saareen, gaar ahaan madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo hogaaminayay wafdigii Ameerikaanka ahaa miiska ay soo saareen, Iran way diiday shuruudahaas. waxa ugu waaweynaa in Mareykanka uu leeyahay in la joojiyo dhammaan howlaha hodminta maadada uraniumta, hubka nuclearka laga sameeyo ee Iran ay leedahay. maadadaas hodminteeda, bacriminteeda, horumarinteedu Iran waa inay joojisaa. maadadaasina waa waxa nuclearka laga sameeyo. Iran waxay tiri maya, arintaas miiska lama keeni karo. hubkeena nuclearka annaga iskale, u madax bannaan, saynis yahanadina annaga iskale, dhaqaalaheena annaga haysana, maadadan wadankeena dabcan ka soo saarayna cid ka hadli karta oo awood u leh ma jirto. Iran warkay miiska soo saartay. shuruudda labaad ee Mareykanka uu dabcan uu ku xiray wadahadalada waxa weeye in la burburiyo dhammaan xarumaha waaweyn ee lagu hormariyo uraniumta Iran. Iran waxay tiri xarumahaas Mareykanka ma dhisin, Israa'iil nooma dhisin, annaga dhisanay. cid awood u leh inay ka hadasho xarumo gudaha wadankeena ku yaala ma jirto. hubkaasi maadadaasi xarumaha lagu hormayo, xarumaha waaweyn ee lagu sameeyo, cid ka hadli karta ma jirto. sidoo kale shuruudaha waxaa ku jiray in dib loo soo celiyo uraniumta heerkeeda uu sareeyo oo yacni la hormariyay oo heerkeeda hadda uu sareeyo oo meel sare joogta ha la burburiyo, dhulka lagu daro. shuruudda kale ee Mareykanka uu miiska soo saaray waxay ahayd in la aqbalo qaab ballaaran oo nabadeed, amni iyo dejinta xiisadda ee hadda ka jirta gobolka. Iran waxay tiri arrintaas muhiim nooma ahan, annaga waan dabcan ka hadli karnaaye, waxaas shuruud ma ahan dabcan anagu diidi karnee, ka socay tiri. shuruudda kale waxaa weeye waa Iran way aqbashay macnaa qodobkaasi. shuruudda kale ee Mareykanka uu watay waxaa weeye inay Iran joojiso maalgelinta kooxaha Iran ay taageerto ee Hezbollah iyo kuwa Yemen jooga ee Xuutiyiinta iyo kuwaasi kale. Iran waxay tiri kooxahaasi waa kooxo wadamadooda jooga iska caabin ah, dabcan annagu ma taageerno, dabcan siyaasad ahaan baan isku raacsannahay, macnaheedu wax dhaqaale ah oo annaga aan siino ma jirto. arrintaasina ma ahan dabcan arrin hadda miiska saaran oo Iran ay ka doodayso. marka haddii aad doonaysaan kooxahaas inaad la dagaalantaan aada, laakiin waa in duqeymaha laga joojiyaa oo xal kale la raadiyaa. marka shuruudahaasi ay ahaayeen kuwii Mareykanka ee miiska uu soo saaray, wadahadalada burburiyay, lagu kala booday. falanqayaasha marka waxay leeyihiin waxa dabcan Iran ay diidan tahay maba ahanba kooxahan Iran ay taageerto iyo marinkan Hormuz oo dabcan furitaankiisii la damaanad qaadaya iyo waxaas ma ahan. arrinta nuclearka weeye meesha sirta ay ka qurunsan tahay. Pakistanna ay tiri wixii halkan ka dambeeya waynuga adag tahay inaan annagu qancinno oo aanu dabcan Iran dhahno hubka nuclearka burburiya, halka sidoo kalena Israa'iil iyo Mareykanka iyo Pakistan iyo Indiana ay hub nuclear ay haystaan. marka meeshaas ayaa la isku haystaa, waxaana la leeyahay arrintaasi sinaba suuragal uma ahan Iran tan inay aqbasho oo ay dabcan hubkeeda nuclearka ay ka tanaasusho. daawadayaal, qodobkeena ugu dambeeya ee barnaamijkeena ayaa waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaaraha maamulka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa booqasho gaaban oo qarsoodi ah waxa uu ku tagay koonfurta wadanka Lubnaan, halkaas oo uu ku booqday ciidamada Israa'iil ee xooga ku haysta koonfurta wadanka Lubnaan, halkaasna kula dagaalamaya dagaalyahanada reer Hezbollah ee wadankooda jooga. ra'iisul wasaaraha maamulkan Israa'iil ayaa bartiisa bulshada waxaa la soo geliyay muuqaal gaaban oo lagu xaqiijinayay in Netanyahu koonfurta wadanka Lubnaan uu tagay. Netanyahu waxaa la arkayay isagoo dhar madow xiran, jaakadaha xabadda aanu karin dabcan wata, ciidamada waardiyeynayana ay dabcan xiran yihiin dhar madmadow, afkana uu u duuban yahay
ayaa la arkay dabcan muuqaalka laga arkay booqasho qarsoodi ahayd ciidankii xitaa reer Israa'iil baa laga qariyaa la yiri inay dabcan ogaadaan in Netanyahu uu imaanayo uu koonfurta wadanka Lubnaan uu soo booqanayo. Netanyahu isagoo ku hadlayay luqadda Cibraaniga wuxuu sheegay in howlgaladii ugu dambeeyay ee Israa'iil ay ka fulisay aagan koonfurta wadanka Lubnaan in guulo waaweyn Israa'iil ay ku gaareen oo dagaalyahano fara badan oo reer Xisbullah lagu dilay. waxa uu sheegay in shaqo baaxad leh halka laga qabtay oo dabcan muuqata oo Israa'iil guul ay ka gaartay, laakiin ninkan waxa la leeyahay in ciidamadii ilaalinaysay uu afka u soo xiray dharmad madow u soo xiray jaakada xabadda aanu karin isagana soo xirtay oo si qarsoodi ah booqasho dhowr daqiiqo ah uu ku yimid koonfurta wadanka Lubnaan ayaan haddana baajinin baa layiri in ay kooxdan dagaalyahanada reer Xisbullah ay ogaadaan meelaha suuragalka ah ee Netanyahu uu soo galay koonfurta wadanka Lubnaan. dabcan taas marka waxay keentay in dagaalyahanadan ay madaafiic u kala qaybiyaan meelo kala duwan, xarumo kala duwan oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo ay dabcan maleeyeen in Netanyahu uu ku dhuumanayo kuna sugan yahay. taas marka waxay keentay in dhowr xarumood oo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin madaafiic loo kala qaybiyay oo ay ku habsadeen oo dagaalyahanada kooxdan ay fuliyeen. sidoo kale dagaalyahanada habeen hore guri ay ciidanka Israa'iil ay degnaayeen ayaa afarta jiho ay ka soo mareen oo mar qura weerar saf mareen ay ku qaadeen halkaasoo ciidanka qasaare ay ku gaarsiiyeen. marka habeenkii labaadna warka Netanyahu bay heleen in koonfurta wadanka Lubnaan uu imaanayo, arrintaasoo marka horseeday in aysan ogaanin baa layiri guriga rasmiga ah uu Netanyahu uu ku sugan yahay ama xarunta rasmiga ah ee saldhigga ciidamada ee Netanyahu ku sugan yahay, laakiin dhowr xarumood oo ay u maleeyeen in odaygan uu ku dhex jiro ayaa ay madaafiic u kala qaybiyeen. walow ammaanka koonfurta wadanka Lubnaan ciidanku isku ballaariyeen, diyaaradaha hawada la geliyay, sirdoonka Israa'iil dabcan basaasiinta ah ee Lubnaan jooga koonfurtooda la howlgeliyay, intaasoo dhan waxaa dabcan lagu dadaalayay Netanyahu inaan la ogaanin lana soo weerarin. laakiin ugu dambeyntii reer Xisbullah kooxdan wax iska caabinta way ogaadeen xarumo kala duwan oo ninkan lagu qarinayayna madaafiic bay dabcan la beegsadeen. lama yaqaan marka khasaaraha gaaray ninka Netanyahu cidda la socotay iyo sidoo kale meelihii uu ku sugnaa haddii askar ay waxyeelay ka soo gaartay inta lama yaqaan. laakiin waxa xaqiiqa in ninkan muuqaalka sidoo soo duubay oo koonfurta wadanka Lubnaan uu booqday xisbiganna dabcan ay ogaadeen xarumo 2 ilaa 3 ah oo ninkan uu ku jiray meelahaasna madaafiic ay ku tuureen. marka maanta ilaa iyo berri ilaa iyo caawa ay soo bixi doontaa qasaaraha kala duwan ee wafdigan Netanyahu halkaasi ku gaaray. dhinaca kale wasaaradda caafimaadka wadanka Lubnaan waxay sheegtay in duqeymihii cirka ee Israa'iil ay dabcan lagu dilay 2,000 oo qof tan iyo markii dagaalkan bariga dhexe 28 Febraayo uu bilowday. arrintaasoo markaa loo arkay ninka Netanyahu meel 2,000 oo qof oo rayd ah uu ku dilay ayuu haddana si xoog ah uu ku tagay oo uu dabcan booqasho uu ku tagay. marka 2,000 waan dilnay wadanka Lubnaan, waanu ka dilnay wadankoodana xoog ayaan ku booqanayaa iyada oo aan dowladda ogeyn. waa dabcan gumaysi baa loo arkay iyo waxa loo yaqaano isirsifayn. sidan marka Lubnaan oo kaliya kuma uusan samaynin, sidoo kale Suuriya dhul ka mid ah oo Israa'iil ciidankeeda xoog ay ku haystaan ayuu sanadkan horaantiisii booqasho xoog ah uu ku tagay, weliba xilli wada hadalla ay socdeen oo ay wada hadlayeen Ahmed al-Shara madaxweynaha wadanka Suuriya iyo Trump xilli ay wada hadlayeen buu booqasho ku tagay. haddana Islamabad iyada oo la fadhiyo oo la wada hadlayo ayuu koonfurta wadanka Lubnaan xoog ku tagay. waxaana dabcan booqashooyinkan wadamada madaxa bannaan uu ku tagayo ninkan si xoog ahna lagu geynayo loo fasirtay in siyaasadda Israa'iisha weyn ee bariga dhexe oo idil doonaysa inay qabsato oo dhul balaarsi ah in siyaasaddaasi ay arrimahan ay ka dambeeyaan. marka saaxiibayaal qaybta hoose nagula wadaag Netanyahu oo la weeraray isagoo koonfurta wadanka Lubnaan joogay, khasaarihii oo weli banaankan u soo bixin iyo arrimahan ma waxaa loogu talagalay Netanyahu inuu ku carqaladeeyo wada hadallada Islamabad ka socda, mise waxay kula tahay dabcan in dagaalkaba Israa'iil ay doonayso inay ku sii wado wadankan Lubnaan. qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku saabsan nagula wadaag. waxaanu idin leenahay saaxiibayaal maalin wanaagsan.